بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ساعد يلا سوي البوابة كي يدي سو جاري ما له وناكسن وحنا عبد المجيد الشيخ عثمان وحنا جالس عتان رويال تالنتي سبورتس دور وناكسن طبعا دور نمدان قضبات برنامج كجبك دونتان وحكمل نقون دونا جرين نافل جيمي كراغل أو كفل عليا سعادة جلسية بين جون والإتياغو سيلفا توماس باردي أو جوان كقدي حيسها أرسنال هل أرينا يا كجوان يورجينا وينالدوم أو دور ككتوك ليفربول هلا أي برشلونة تلعبوين وقاد سعيسا مانشستر سيتي أو كشقينيسا هل أرين يلا بس صحيح أو سيدك إني وها شيء دونيسو جرين نيفل أو مقعد شنت صحيح أو أي مانشستر يونايتد وبا هانتا هاي ترتنك إني كوبو ليس ترتنك بريمير ليغا مانشستر سيتي واحد كانت كم مقدر دونتان انتو برنامج كان هودو كجرو سيرة زيدان أوقع شخصية توني كروز ميسي مان سيتي جون سانجو ما يونايتد بيلرين بي اس جي جيمس ايفرتون كاينتا انتر ميلان وركي ود بيسوق كاليبسيغا عيارتويدا مانتو أربعة يا كيف قلتن انتان برنامج كان كوجر انكو بالله مانتو مالينما أربعة تاريخ دونا اي كو بيغانتاي لودا بيش السغالات لودا كون إلواتنكا أقول بلا نقطب كوه رأي عيارها توماس بارتي أو جوان كقادي حيسها أرسنال هل أرين أيا كجوان حديقة قد كده كودا أتلتيكو مدريد توماس بارتي أيا لغو صور رميا إنو جوان سدي إنو كبيرة كودا أرسنال أو سنوي لولا هريرين يبليه قدام بي جانريس أيا سنوي لولا هريرين أما ودوني صحيح حديقة مدو بلاء حلي هشيسكيسو لغو بربورين كارو لعقنا 44 مليون يورو لكن أرسنال أيا أود لهين إنay بيعيسو لعقتاسي oo ay dalbanayso kooxda Atletico Madrid Mikel Arteta ayaa la rumeysay inuu si aad u doonayo saxiixa Thomas Partey waxa uu tababaraha Arsenal u baahan yahay inuu bixiyo ama inuu ku iibiyo saddex xidig si uu lacag ugu helo uuna u soo gato Thomas Partey si kasta ha ahaatee Gunners ayaa haatan heshay dhiirigelin ugu dhaqaaqi karto saxiixa xidiga kadib markii uu go'aansaday inuu ku biiro kooxda Arsenal Atletico Madrid ayuu saameeyay xanuunka coronavirus ayaa dhankeeda aad ugu baahan lacag laakiin waxa ay diidan tahay inay hoos u dhigto qiimaha lagu heli karo xidigaheeda Jorginho Wijnaldum oo dhabarka ka toogtay Liverpool xilli ciyaareed xilli ay Barcelona talaabo weyn u qaaday saxiixiisa xidiga qadka dhexe kooxda Liverpool Jorginho Wijnaldum ayaa lagu soo waramayaa inuu heshiiska shakhsi ah la gaadhay kooxda Barcelona si ay sheegayaan wararka ka imaanaya dalka Spain Jorginho Wijnaldum oo shaki weyn ku jira mustaqbalkiisa ayaa toddobaadkan ugu dambeyntii lala xiriirinayay kooxda Barcelona kadib markii uu xidiga galay sanadkii ugu dambeeyay ee heshiiskiisa ee Liverpool tababaraha cusub ee kooxda Barcelona Ronald Koeman ayaa la rumaysan yahay inuu taageero u yahay xidiga 29 jirka ah ee maadaama uu kala shaqeeyay xulka qaranka ee Holland wadahadalka heshiis kordhinta u dhaxaya Liverpool iyo Jorginho Wijnaldum ayaa joogsaday kadib markii uu xidiga diiday inuu heshiis cusub u saxiixo kooxda Liverpool wargeyska Diario Sport ayaa haatan sheegaya inuu Wijnaldum heshiis shakhsi ah la gaadhay kooxda Barcelona si uu maalmaha soo socdo ugu biiro ama u aado yagada Camp Nou isla wargeyska ayaa sheegaya inuu Wijnaldum ay Barcelona u saxiixi doonto heshiis 3 sano ah iyadoo Barcelona haatan Liverpool wadahadal ay u furmeen lana filayo in ay ku heshiiyaan lacag dhan 18 milyan oo euro markaana Manchester City oo ka shaqeynaysa in hal mar ku wada dhaqaaqdo laba saxiix oo bedeli kara nasiibka kooxda agaasimaha kooxda Manchester City Thiago Stano ayaa u duulay Barcelona si uu u dhameystiro saxiixa xidiga Lionel Messi xilli uu sidoo kale wadahadallo uu la furi rabo kooxda Napoli oo ay doonayaan daafaca dhexe ee Kalidou Koulibaly Messi
ayaa noqon doona saxiixa ugu weyn ee suuqa kala iibsiga cagaagan kadib markii uu xidiga toddobaadkii hore ee warqad bixitaan u gudbiyey maamulka sare ee kooxda Barcelona. xidiga reer Argentine ayaa go'aansaday inuu isaga tago kooxda kadib ku dhawaad 20 sano uu kooxda gashnaa maaliyadda kooxda Barcelona kadib cabti Bayern Munich 8-2 ugu badisay kulankii bishii hore ee Champions League. wargeyska Spanish ka soo baxa ayaa sheegaya in Manchester City ay doonayso xidiga Lionel Messi iyo Kalidou Koulibaly oo kala ciyaaro kooxda Barcelona iyo kooxda Napoli. anaadna Gary Neville oo magacaabay 5 saxiix ay Manchester United ugu baahan tahay si ay ugu tartanto koobka Premier League. intaa waxay inooga dhan qodobadii ugu waaweynaa ama wixii ugu waaweynaa sportiska. waxaan ahay Cabdimajid Isaaq Simaan. fadlan janaalka subscribe noo saaro gabalaalkana furo si aad u daawataan muuqaaladeena. intaan muuqaalka xiga ku kulmi doona waxaan idinka tagay siyaasi nabadgelyo.